ku soo dhawaada bandhig kooban oo ku saabsan tayagelinta waxbarashada Puntland oo qayb ka ah shirka qurbo-joogta Puntland ay ku yeelanayso Garowe bisha December 19keeda ilaa 21keeda sanadka 2022. Ordhac asaaskii Puntland ee bishii August 1deedii 1998 waxaa ka soo wareegtay 26 sano. Tan iyo waqtigaas waxay ahayd inay Puntland waxbarashada xoogga saarto si ay u abuurto dhaqaale aqoon ku dhisan knowledge based economy. Ayaan darro waxbarashada Puntland ma helin maamul dawladeed oo muhiimadda ay leedahay siiya. Walow sanadba sanadka ka dambeeya ardayda dugsiyada sare ka soo baxaysa ay siyaadaysay sida ku cad tusahan klibka hoose ku jira. Tusahani wuxuu ku tusayaa ardada ka soo qalin jabinaysay dugsiyada sare 2010 ilaa 2015. Waxaad u jeedaa in 2010 ardada ka soo qalin jabaysay dugsiyadu ay gaaraysay ilaa 1000 arday. Halka 2015 ay ardadu gaaraysay 2500. Kororka ardayda sanadba sanadka ka dambeeya tusahan ayaa laga saadaalin karaa. Tusahan waxaa laga dheehan karaa in sanadihii 2020 ilaa 2500 ay ardada soo baxaysa kordhaysay boqolkiiba 250. Waxaan ka xumahay in aanan hayn tirakoobkii sanad walba ardada ka soo aflaxda jaamacadaha Puntland. Si kastaba ha ahaatee, waa sidee tayada waxbarashada oo ardaydaasi ka dheefaan jaamacadaha ay galaan. Ma gaarsiisan tahay tayada waxbarasho ee jaamacadaha caalamka? Ardayda soo baxdaa ma la qabsan karaan jaamacadaha caalamka haddii ay maagaan inay waxbarashadooda sii wataan? Jawaabaha su'aalahaas waxaan u daynaynaa bulshada reer Puntland. Aniga aragtidaydu waa maya u dheeraysi leh. Sababaha la haray tayada waxbarashada Puntland. 1. Maamuladii Puntland soo maray oo aan isku hawlin muhiimadda waxbarashadu ay Puntland iyo horumarkeeda u leedahay. 2. La'aanta doorasho qof iyo cod ah oo soo saarta hawlwadeenno labeen ah oo hanan kara muhiimadda waxbarashada iyo hay'adaha kale oo dawliga ah. 3. Jaamacadihii oo noqday dugsiyadii khasabka ahaa oo kale oo soo saara arday dabaka eri ah oo aan marna tayo lahayn oo aan tartami karin. 4. Ardaygii oo marka uu soo baxo aan helin loona tababarin meherad uu naftiisa ku maarayn karo, kaas oo ku khasbanaada inuu gurdan raac tacabir dabadeeda miciin bido. 5. Ardaygii oo hadduu maago inuu waxbarashadiisii sii wato aan la socon karin jaamacadihii caalamka tayo xumo waxbarashadiisa ah darteed. 6. Jaamacadihii Puntland oo noqday warshadaha lagu sanceeyo shahaadooyinka maran. 1. Maamulada doorashada u durbaan tumanaya oo alla solansiiyo in Puntland horumarkeedu ku xiran yahay dhaqaale aqoon ku dhisan. Waxbarashada taabagelinteedana asaas nagaada u dhiga. 2. Wasaaradda waxbarashada oo laga xoreeyo qabiil wax ku qaybsiga si dad tayo leh loogu xulo wasiirkeeda, agaasimaheeda guud iyo agaasimayaasha waaxeed. 3. Jaamacadaha oo laga daayo allay baday oo dawladdu dhowrka siyood oo soo socda wax uga qabato.
in dacmi dawladdu u qoondayso sannad walba jaamacadaha, in agabka waxbarasho loo sameeyo canshuur dhaaf, in la hirgeliyo ugu yaraan sannad asaas dhiga foundation year ardada dugsiyada sare ka soo baxda, kadibna imtixaan laga qaado si loo hubiyo tayada waxbarasho ee arday walba, in waxbarashada xoogga la saaro waxbarasho mihnadeedka job oriented vocational training sida marine science, fishing, geology, boat building, ocean navigation iyo wixii lamid, in 100 arday oo ugu sarreysa loo helo deeq waxbarasho oo ay ku sii wadan karaan ama hay'adaha lala kaashado ama dawladdu ha ka bixiso kharashkee, tartan qiimayn tayooyinka jaamacadaha Puntland ka jira oo sannadle ah. Taasi waxay abuuraysaa in tartankaas ay jaamacad walba ku khasbanaato inay tayadeeda kor u qaado si aan ardada jaamacadaha kale uga aadin, in la dhiso guddi qiimayntaas samayn kara oo lagu magacaabo Puntland Accreditation Committee. 4. In doorashooyinka Puntland ardadu codkooda ku taageeraan murashixii madaxweyne oo gacanta ugu weyn ka geystay taabagelinta waxbarashada Puntland oo garaadka ardayda Puntland ayaan macno la'aan ugu milmin dareen qabiil iyo nin jeclaysi daaran. Taasi waxay keeni lahayd in murashaxa madaxweyne kasta uu ku khasbanaado inuu sidii codkaas uu u heli lahaa uu xil weyn iska saaro tayagelinta waxbarashada. 5. In dawladda Puntland ka codsato hay'adaha caalamiga ah inay u shaqaalaysiiyaan macallimiin jaamacadeed oo tayo leh si waxbarashada gobolka sare loogu qaado. West, UNICEF, UNDP iyo kuwa kaleba waa laga dheefi karaa arrintaas iyada ah. 6. In jaaliyadaha Puntland ee qurbaha ku nooli isku dayaan inay soo waaridaan agabka waxbarasho ee shaybaarada, laboratorieska jaamacadaha iyo weliba kuwa isbitaallada. Gunaanad, haddii ayan Puntland shacab iyo dawladba xil gaara iska saarin tayagelinta waxbarashada, waxaa badan doona caalwaaga ardayda oo horseedi kara dhibaatooyin bulsho, dhanka ammaanka, isticmaalka mukhaadaraadka iyo colaadaha sokeeye oo ay sababteeda leedahay dhaqan xumadaas jahligu sababta u yahay. Talow doorashada Puntland ee qof iyo codka ah oo loo ballansan yahay, dadka reer Puntland ma ka dheefi doonaan dawlad dheguhu u daloolaan oo hirgelisa dareenkaas shacabka.